si dhammaystiran ayaa lagu bixiyay qarashkii kuugu baxay, waxaana lagu bixiyay hal koob oo caano ah oo aad adigu sadaqaysatay. haddaba maxaa dhacay? السلام عليكم. قصة عجيبة oo mudan in lagu tusaale qaato. waxa uu ahaa wiil faqiir ah waxauna iibin jiray badeecooyin yaryar xilliga uu sii socday iskuulka si uu halkaas ugu helo nolol maalmeed yar. maalin maalmaha ka mid ayaa waxaa dhacday wiilkii faqiirka inuu dareemo baahi aad u daran isagoo u sii socda iskuulka uu dhigan jiray, isla markaana lacag oo dhan waxa uu ka haystaa 1 shilin oo aan waxba lagu iibsan karin. si kastaba ha ahaatee waxa uu go'aansaday guriga ugu soo hore ee uu arko inuu weydiisto wax uu cuno. nasiib wanaag, gurigii ugu horeeyay uu arkay waxaa albaabka ka furtay qof dumar ah oo da'yar misna aad u naxariis badnayd. waxaase dhacday wiilkii faqiirka ahaa halkii ku weydiisanna wax uu cuno waxa uu weydiistay biyo uu cabo, waayo waxa uu la wareeray baahidii haysay darteed. balse qofkii dumarka ahayd waxay aragtay wiilka inuu aad u gaajaysan yahay, sidaa awgeed waxay u keentay koob weyn oo caano ka buuxa halkii ay ugu keeni lahayd biyo cabo. wiilkii faqiirka caanihii ayuu si degan u cabay, kadibna waxau weydiiyey qofka dumarka ahayd ee caanaha siisay, imise ayaad iga baahan tahay koobka caanaha ee aad i siisay? kadibna waxay ugu jawaabtay, ma jirto wax aan kuugu leeyahay, waayo hooyaday waxay bartay inaan marnaba aqbali karin aan iibsan karin naxariis aad qof u gashay. intaa kadib wiilkii maskiinka waxa uu ku yidhi, haddaba iga gadoon mahadna kaaga yimid xagga qalbigayga. muddo sannadooyin kadib waxaa dhacday haweeney dhallinyarada ahayd inuu ku dhacay xanuun aad u daran. nasiib daro dhakhtarkii joogay magaaladii ay degneed waxa ay ku guuldareystaan inay daawo u helaan cudurkii ku dhacay. ugu dambayntii waxay go'aansadeen inay u gudbiyaan magaalo weyn oo lagu sheegay inuu joogo dhakhtar si khaas ah ugu takhasusay cudurka ku dhacay qofkii dumarka ahayd. dadaal badan kadib alle subxaanahu wa tacaala waxa uu qadaray in lagu guulaysto in la badbaadiyo qofkii dumarka ahayd. ugu dambayntii xafiiskii maalgelinaya qarashkii ku baxay daaweynta waxay warqad lacagta lagu bixiya u direen dhakhtarkii sida qaaska ee loogu qabtay gabadhii xanuunsanayd si uu ansixi ama u aqbalo qarashkii uu qaadan lahaa. dhakhtarkii markuu arkay warqaddii si wanaagsan ayuu u eegay, kadibna dhanka kale ayuu u gediyey. qoraal yar ayuu ku qoray warqaddii, kadibna wuxuu dib ugu celiyey xafiiskii u soo diray. dhanka kale qofkii dumarka ahayd waxaa iyadana lagu diray qarashkii ku baxay daaweynteeda. run ahaantii aaday u walwalsaneed inay furto warqadda, waayo waxay ahayd qof aan waxba haysan. sidaa awgeed waxay dareemaysay qarashkii ku baxay inuu ahaa mid aad u badan oo laga yaabay inay bixiso nolosheeda inta ka dhiman. ugu dambayntii waxay go'aansatay inay furto warqadda, balse waxaa dareenkeeda si weyn u soo jiitay qoraal yar oo ku qornaa warqadda. dhanka kale waxa u qornaa sida tan: si dhammaystiran ayaa lagu bixiyay qarashkii kuugu baxay, waxaana lagu bixiyay hal koob oo caano ah, waxaana warqadda kuu saxiixana doctor xasan amiin oo ahaa wiilkii maskiinka ahaa oo sannadooyin ka hor aad siisay koob caano ah isagoo baahi la ildaran. markay intaa aragtay indhaheeda ilin ayaa ka soo daadatay, waayo marnaba ma aysan filinaynin naxariistii yaradii ay samaysay inay mar-uun ku badbaadi doonto iyadoo u baahan caawimaad. qisadeen halkaa ayuu ka egtahay. haddaba nuxurka qisadu waa maxay? nuxurka qisadu waxa weeye inaan noqon ummad wax sadaqaysataa, waayo waxaa la yidhi ruuxii ixsaankiisa bato walaalihiis ayaa badan doona isagana. isku day inaad noqoto ruux abaalgada. waxaa xaqiiqo ah mar-uun in lagu abaalgudi doono adigoo filinaynin, weliba u baahan in lagu caabiyo markaasi. waxaan alle subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa inuu naga dhigo ummad isjecel oo isku naxariisataa oo keeda waxaysta u caawiyo keeda liitaa. maalinta aakhirana kuwii ku kulma jannatulfardows ah ilaahay ha naga dhigo dhammaanteena. allaahumma aamiin, allaahumma aamiin. waxaynu soo gaarnay gabagabadii muuqaalka. haddii aad ka heshay muuqaalkani like saar,
siina gaarsiiya asxaabtaada intaan ku kulmi doono kan iyo muuqaalkiis xiga fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.